bulshada caawa laanta ka Soomaaliya soo caawa ka bana dadka qurba joogta ah ee ka socda ama ka safra qurbaha ee waddanka Soomaaliya waxa ay soo kordhin karaan ayada markaasina qaar ka mid ah waddanka Soomaaliya ama gaar ahaan shaqadii ayaa waxa weydiinaa bal sidee u arkaan ciyaaraha ay soo arkeen dhammaantiin kusoo dhawaada laanta ka Soomaaliya soo أنا وأدونا waxaan bilaabi lahaa waradii Axmed ayaa ku bilaabi lahaa Axmed magaalada Muqdisho tagtay Soomaaliya caafimadeeda ayaa tagtay sidee ahayd bal marka aad fiirisid xagga ammaanka iyo weliba adigoo toos u abaaraya waxqabadka dowladda federaalka hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud xerkiya بسم الله الرحمن الرحيم أطلبنا أحسن الاستعداد عندي إن بنفس الفعل بركض على السلام مع شعبنا الصوماليات نحكي بعضنا رمضان إيو ورانك حديث على منتي إن أخذي عن وضع دعاء إن أركتي إذا كل جهن تجيب الصومالية إيو حاجة أقصى أحكي والله وضن كأسبدل بحاول ينقض عي مركز فيري دلك إيو ضدك إيو حتى الدين تلبس كذا ودين الإسلام كو مقدس كلبس كذا ما كان فيه سو إن ولسوتين حزبي وضن كجيران ومحل دلان ومسيابة كندون أو كان رمانو إن فرح الإسكتاب وأديك إن كستوي أدو كلفك تعي أركتي عن قفكو مركو جوجو دبدا أي مركو كلها جوجو أدو كلفك تعي وأركتي دام كان يسطبون دبدا جوجتو أي كدوان تعي مركا كلها جوجتو سيدا أن نرشا بدوينها الأمن جلست الكيسة ومركا إذا على نصوتو دبدا جوجتو على كيسو بالبعض انتاي بعد عام يحل على الجلي لكن مركا مجال جوجتو هذا بوحدك كدريمينين waxay isbedela magaalada dadka wada faraxsan wada shaqaysanaya waxa ka shaqeeya tacliinta loo kala dareeray de waa caasimada waxay lamid tahay Baghdad iyo Qaahira lamid tahay markii loo fiiriyo oo dhinacna dagaal ka jiro dhinacna aan laga dareemaynin marka kulli guud ahaan haddaan soo koobo waddanka isbedel waa ka dhacay dhaqaalii baa koray هيكل دولة نمو واجرة ولو أن أوصل مثلا محنكي دولة نمو الموقعي أي سماش كموغن أو بسبتلك أنتي فضلا أي شعب وإسلام وقفصة وسميا قرب الجغرافيا سمي سي من جامعة الفراي كان عصبتو نايلة الكويس كاشي سمي مركا هنكي ولاية دولة الموقعي أيامش كفوق لكن guud ahaan dalku barada isbedel aad u weyn ayaa ka socda waxaan markan u baaqayaa aqoonta caaliyo oo faqad ku jiro ku dhow laanta Soomaaliya muddo waxaan weydiinaa qurba joogta markay ka baxaan wadamada ay joogaan ay dalkii ku qabtaan waxa ay soo kordhigaan waddanka Soomaaliya marka laga reebo daraha inta waddanka Soomaaliya وجودته وحوي شعب وشعب كليبا ومعناها وجودته وحدي أي سلم أهين قوة سياسة هي كشقية وحوي سياسيين أي كشعب عادية طبعا وحيالها أشوف بالفكرة محكم بها إني تدك إهل دوبة يقرابوا دوبة يعني واحدة على كبرديان وأي محيالي واحد أقون وأي صوت كبرديان وأي dalkii waxuun ay ku siyaadiyaan laakiin haddii ay yihiin kuwa siyaasiyiinta ah oo maxay helay manaahiijka ka duwan midkii ay Soomaaliya dhaqanka u lahayd shirka oo maxay helay meesha u doonta xilal iyo inay maaragtay ka qabtaan jagooyin iyo shaqooyin u doontaan kuwaasina way ka duwan yihiin marka waxyaalo kala duwan waxay ku xiran tahay qof walba isagoo qaabka uu meesha u tegey iyo waxa uu xambaarsan yahay iyo hadafkiisu waxa uu yahay ayay ku xiran tahay qofna khasaaro geynaya umurtii iyo dadkii iyo diintii iyo wixii oo dhan wuxuu geynayaa dhibaato iyo mashaakil qofna wuxuu geynayaa faa'iido oo wuxuu geynayaa aqoon oo wuxuu geynayaa lacag oo wuxuu geynayaa maxay helay talo wanaagsan marka waxay ku kala xiran tahay qof walba isagu
positive qofna waxay u taabanaysaa tegitaankiisu negative oo markaa dabeecadda qofku yahay ayay ku xiran tahay tegitaankaas ama faa'iidadaas ama waxa uu halkaas ku samaynayo
maskaxdoodu si kala tageen qurbaha kadib ay ogaadeen in bini'aadamku xushmad leeyahay qofka markaa waxa uu ka gadanayso inaad amaal u hayso tiraawada waxaad miibsan karaa okay waa marka wixii ku siiyo okay waa mahadsan tahay marka ninkii uu la yaaban yahay nin wax ka gadanayo lacag siinaya haddana waa mahadsan tahay marka dadkii oo dhan waxaad wadaan isbedel xawli ah oo ku socdo waxaana ilaah ka rajeynayaa insha allah in wax badan iska bedeli doonaan oo hore loo socon doono waxaa kaloo aad u xumahay inay dadku kaalintii dowladnimo ay ka cadanayeen oo markii laga reebo ganacsato iyo qurba joog iyo dad iskooda su-aal qaamo marka laga reebo inta badan dadka intooda kale aysan kelin kaalintii dowladnimo ay ku tashanayeen ama ay sugayeen أحمد هذا كله كتب لأنه حرق مقصود تجي قارن بحبتي أو أهل الدبن تجي وعامله كل من عيب عيب مقصود هذا هذا هنا عمل مهم سؤال هذا كيف تبغى الواقع نص قال عن جرت توطية مركزي أما اللي معه وزير قطري سيروح يعني مسكر عن قبيل كذا أما هو ضيع هذا وصل كذا هذا في عاوز أجل نفهم من برا وعمل الحين ضد كده مغير الأمرية أما حب اللي بعده مزير أمام الحين ومغير أما كان يلوط نحكيها هذه sunta aniga horta xil loo mataginin degana maanan doonanin aniga hooyaday ayaan aaday oo aan aragin muddo 9 saacadood ah maxaa kasoo tegay magaalada muqdisho Febraayo 2006 oo haystay wadanka hogaamiye kooxeedyo aeroboortkii aadan cadde ayaan ka degay oo xilligii aan kasoo tegay magaalada muqdisho in gawaaridu ay ka qaadayaan dhagaxa iyo jaay guryaha lagu dhiso oo bilaba xoogin ka socotay maanta markii aan ka degana waa ka aeroboor kulay soo koraya oo heykal dowladnimo leh marka ani waxaan u baxay waxay ahayd walaalkay inaan hooyaday aan gudada ugu jeclahay soo arko iyo dhammaan familkayga intiis kala gedisan oo meesha jooga waana kusoo guulaystay oo targetkayga intee 3 week xilliguma doonto dadka xilka doonaya waa inay baxaan koley anigu ma hubo laakiin waxaan u maleeyaa inay xilli badan u baahan tahay xilku waqti badan laakiin aniga hooyadey masaas maahan hooyadey ama soo kulmeen oo weli iga qiimo badan maasha allah macnaha soditaanka xoogaa waxaa tiri inaan soo tilaxtaa walbada marka hawa asaraada ku dareen maxamed waxaan weydiin lahaa ganacsatada iyo qurbajoogta ayuu aad ku dhuftay axmed marka eedan inta badan dad badan markaas aan wareystay oo hore wareystay barnaamijyo hore wareystay waxay sheegayeen dadka ganacsatada iyo dadka qurbajoogta inay maanta solution samayn karaan oo gacmaha samayn karaan oo hadda waxay bedeli karaan taa aday noo qabtaa niyo waxa aad u xumaay xagga codka waa aad adiga ragga kale markay hadlayaan aad baan u maqlaa laakiin adiga dhankaaga eladina iga haysata dhibaatada ay ka sheegeen waxaa kamid ah qurba joogta iyo ganacsatada marka baldii kale ganacsatadii iyo qurba joogtii kaalintoodii dhinaca gacmoonka ay ka gaarayeen haddii su-aasha waxaan u fahminayaa dadku waxay ka cawdaan dhinaca qurbajoogta ganacsatada iyo qurba joogta sababtoo ah waxay amisdadoo la suceeleyihiin maanta waxaa wax bedeli kara ganacsatada iyo dadka qurba joogta wax soo martay ayaa wadanka wax ka bedeli kara taasa waa adiga horta dalka waxaa wax ka bedeli kara shacabkiisa sida hadda walaalkeen axmed uu sheegay waxay soomaaliya leedahay maanta masawir dowladnimo laakiin waxqabadkii uu weli dhiman yahay waxa maanta ka socda magaalada muqdisho oo caasimadii dalka ah waxa weeye isxilqaan muwaadinimo oo ay sameeyeen dadka shacabka ee halkaas ku nool iyo soomaalida kale ee gobolada deganba waxaa isugu tegay meesha dadkii dalka u dhashay ee qurbaha joogay ninba wuxuu keri karay ayuu la tegay inkastoo aan aad uga xumahay qurba joogta qaarkeed yani inaysan la noqonin dhaqan wada fiican aysan la noqonin oo nin walba xogaha yarka ee aan dhaliilayana ayaga laftooda ay xumaan meesha geliyeen oo xagga dhaqanka ah oo xagga diinta ah yani xogaa maaragtay laga qabanayo way jirtaa laakiin xoogga waxtar kale ee maanta meesha ka socda ee muqdisho maanta ka socda waxaa geeyey yani ilaah u kasay
gobolada kale dalkaba laakiin waa soo dhaweynaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga sida hadda Axmed u tagay oo kale ama wax ku kordhiyay markuu waalidkii u tagay iyo ehelkii ama yani si kale u shaqo tagay oo ayagoo shaqaysanaya wadankii wax ku soo kordhiyay hadday dhismo ahaan lahayd hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday dawooyin ahaan lahayd yani dhankaas u dhisaayo wadankii aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku mahadsanyahay يعني رجوا يبكوا مرحي قربها جوجان وحا رواسي دائما قربها جوجان وطن كورة قربها حبا يولي القربة القربة أيضا معرفة الأمور هذا قربها بأينا دي جوجتو سيكون الجارة آذن قربها جوجان سمحي أبدية آذن جوجان وأب سبحانه جوجان أبتاكي يدبكاكي الدين تهدي halkii aad ku dhalatay asalkaagiina wuxuu qabato oo maxay wax ku tagto haddii aadan wax ku tiri karin xitaa aad badbaadiso waxay ay kaa nabad galaan adiga oodan dhib geysan iyo mashaakil adan kusii kordhin marka waxa weeyaan waa run qurba joogtu waa leeyihiin ta'siir waa leeyihiin labada dhinacba yani negative iyo positive waa leeyihiin waxa si badan marka si loo eego dadka shacabka ee caadiga ah sida wanaagsan u taga meesha maxay yeelay eheladooda ku soo booqda kale halkan waxa ka muuqata yani dagaalka iyo mashaakilka jira wuxuu u dhexeeyaa laba qolo oo laba manhaj kala wadata oo manhaj walbaaba uu ka kala diidan yahay laakiin shacabku sidiisaba shacabku dabcan nabadda wuu haystaa sababtuna waxay tahay qolada qolada baaba waxay doonaysaa inay shacabka kasbarto oo ay manhajkeeda ka daadiciso oo ay ku aqbalsiiso waxa ay doonayaan laakiin waxa meesha ku jira qolyo kale oo maxay ahaday ka baxsan soomaalinimadooda diidan oo inay soomaalidu is-afgarato iyadu oo ay heshiiso is-islaamto diidan sida amisom oo kale marka la yidhaahdo waa dad iyagu meesha kusoo shaqo tegey wadana doonaya oo shacabka ka baxsan labada dhinacba kuwa dowladda taageersan iyo kuwa al-shabaab taageersan intaba maslaxadaha iyo waxa ay doonayaan wax aan ahayn lagu doonaya jooga meesha waa dowladaha dariska ah waa amisom waa nidaamka internationalka ah oo maxay ahaday meesha joogi jira waxaasoo dhanina waxay ka shaqeynayaan inay isku diraan shacabka oo isku diraan shacabka iyo dowladooda oo isku diraan shacabka iyo madaxdooda oo madaxda laba dhinac iskugu diraan oo ay maxay ahaday isla dowladda madaxdeeda isku diraan oo maxay ahaday wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha isku diraan oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku diraan oo baarlamaanka iyo wasiirada isku diraan oo ay qabyaalad dhex dhigaan oo ay ka shaqeeyaan mashaakil iyo maxay ahaday dhibaato xitaa anigu waxaan tuhmayaa run ahaantii qaraxyada dhacaa intooda badan inay yihiin wax siyaasadaysan oo maxay ahaday qolana ay sheeganayso qolana ay fulinayso oo maxay ahaday aan ahayn wax loogu talagalay in qof lagu dilo ama qof lagu ciqaabo laakiin uu yahay in barnaamij lagu fuliyo oo warqado iyo ujeedo la leeyahay dowladda ama looga saxeexdo ama qoladii kale looga saxeexdo marka halkaa haddii ay shacabku isla fahmaan sida ninka maasha allah dhalinyarada xamar intuu tegay waalidkii soo booqday maxay ducada doontay sidaasoo kale haddii ay dadku daacad uga yihiin wadaniyadooda iyo soomaalinimadooda iyo dadnimadooda iyo islaamnimadooda waxaa halkaa kasoo bixi kara in la isfahmo oo shacabku ay isfahmaan oo qof waliba uu qofka kala fahmo oo uu shakiga iyo kala cabsida meeshu ay ka dhammaarto gebi ahaanba markaa si wanaagsan weeye waanan u taaniyadeyna ninka soomaaliya tegey ee khabarka nooga keenay iyo weliba wanaagga nooga soo sheegay maasha allah
qaadayno oo nabadii soo celinayno oo dalkii dhisayna inay ka rumeeyaan loo baahan yahay qaabkay uga rumaynayaan marka مثلا waxyaalaha dowladdu ku balan qaaday dowladdu ballanqaadkii ay samaysay ma aha inay had iyo jeer ku dhiganaato inay xabad dalka ku islaaxiyaan oo ay maxay nabadii qasab ku soo celiyaan iyadoo la ogyahay in aanay dhici karin in qasab lagu helo nabad waa hadda kahor oraha soomaalida wadahaysaa jirtay rag hooyadiina u hayayo walaal wuxuu ku dhaamo maan arag marka waxaa rabaa dowladdu inay aqli samayso oo ay qolada ay kasoo horjeedo ay yidhaahdaan awal hadal oo waxa ay doonayaan ay weydiiyaan oo ay iyadoo soomaali layahay oo aan aniga meesha ku jirin gacan shisheeye in waxaan anigu caawa waxaan ugu baaqi lahaa dowladda soomaaliya iyo qolada kasoo horjeeda al-shabaab labadaba waxaan ugu baaqi lahay ciddii doonaysa inay dalka wax u qabato caawa ha daawadaan aljaziira kanaalka aljaziira qaybtiisa carabiga ha daawadaan mudaawamadii xamaas maxay cid waliba eedeynaysa caawa shucuubtii carbeed waddan kastoo ay joogaan mudaharaadka ay u samaynayaan ay ku ayidayaan lagu taageerayo xamaas lagu taageerayo caawa cid walba ha daawato waxa weeye dalkani wuxuu u baahan yahay in ay qof la helo daxiya waxaa la yidhahdaa qof solitary ah oo naftiguro ah oo aan ka baqin Ethiopia iyo Kenya adaabka ay ku hayaan ay la damacsan dalka Soomaaliya madax ka hor tagta oo sharcad u diida oo idaacadaha ka sheegta oo adduunkoo dhan u sheegta u baahan haddii intaa aan helnana waxaan helaynaa taageerada shacabkeena oo dhan oo isku duuban oo aan kala lahayn reer hebel iyo manaaxiis kala duwan aan kala lahayn iyo qabyaalada aan kala lahayn oo isku toosan oo qofka isagaa ayidaya mowqifkiisa ku ayidaya ayaa la helayaa taasi waa hubaal horta midda guud siyaasada dowladda iyo shabaabka kala dhigaysa dadku horta waa dad wada shigay oo laba walaala ah oo isku aabini isku hooyaada shabaab iyo dowladda ku kala jira xamarna wada degin marka yaa ku awood badan haddii ay tahayna yani waxa weeye dadka hadda la dhegeysanaya laftooda ayaa maalin walba maqla ama arka ama ninkan walaalka inay hadda xamar ka yimid asagu soo arkay inuu asaga yani siyaasada weydiiyo bal maadaama xamarka siyaasada labada nacsiray ku ahay isaga caawa aad looga raba maadaama marka hore xarabka ku dhuftay markaa hurdaha shimaan waa faajidan geli jiran markaan meesha tagayna wax ka duwan wixii hore ayaa soo arkay marka waxaan filayaa axmed inuu aad ugu duun daloola caawa inuu asagu wixiisa ku soo arkay aad baan u jeclaan lahaa inaan afkiisa yani ka maqlo nabadda hadda uu sheegay sida ay tahay iyo siyaasadan isdiidan ee labada dhinaca sida ay xamar yani u saamayso haddii aan intaa ka gudbo marka aniga aragtidaan ka jirto waxaan ognahay xalinka ugu dambeysay sanad galab waxaa magaala xaafadda xamar ka mid ah shir weyn oo la isugu yimid oo quraan maaragtay tartan quraaneed ah quraan akhrisa yani ku qabtay waaliga al-shabaab ugu magacaaban magaalada muqdisho oo la yidhaha sheekh cali maxmed marka sheekh cali xalis wuxuu ka dhex qudbaynaya magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne uu ka yahay waxaan marka rabaa inaan dib ugu noqdo markaan leeyahay laba walaala ah ayaa midna shabaab yahay midna dowladda waxaan ka wadaa xasan sheekh maxamuud iyo cali maxamed abujabal oo ah ninka waaliga muqdisho ugu magacaaban magaalada muqdisho ee al-shabaab ugu magacaaban waa dad qaraaba ah waxa dadka kale kaxeeyey yani waa manhajka uu qofku aaminsan yahay dimuqraadigaa kalmadii islaamigaa tahay waxaan kaloo rabaa inaan shacabka u sheego shalayta waxaa dowladda soomaaliya ayaa waxay aad u dhaliishay waxa falastiin lagu hayo ee yahuudda gumaadka ay ka wado gaza waxaa ku oran marka warbixinta dowladda islaamiga ah ee soomaaliyeed ummadda u qaadanayso xasuuqa lagu hayo shacabka falastiin dowladda islaamiga ah ee soomaaliyeed baa ku qoran warbixinta waxaa qoran wasiirka awqaafta iyo wasiirka diinta iyo awqaafta islaam ayuu ka soo baxay warbixinta marka awal marka uu hadlayana wuxuu leeyahay dowladda dimuqraadiga ah ee federaalka soomaaliyeed
qaadanaynaa taas way kala rabo marka in isweydiyo shacabka Soomaaliyeed isweydiyaan
رجل جامعة كبحي أخلاق أو حديث إيش غير معايا حديث كله على تمين الكود النظام كياس كذا بس كي سجنا رجل فيه أو أنا بس كندا سجلت إليهن مركا أصلا كي له جامعة تصوبها أو ودي جنبودن كي أو كده تقولي هذا ما كان ترى ولا وسام تايوان وسام شو كنا ما تكمل كي أوس كلينا هذا خشوع صوتي كلينا حتى شو كسور قاروا مركا بس الدور من الموضوع لكن أنت كلا وحاجينا يعني إلى نسأل لكن ما دام هذا الجوتي هاي ترى كبر وما كتب عراء يمارها سهرة حتى هنا تحسوا على التوقيش حتى عينك دول تكسر مكان أسرع وقطعة هل تسرقط الغلط هل إصرار تسرقط الغلط يمكن وجهه هذا الإنتاج أصلا وحنا ممكن واحد يكون ممكن يحاول عيوان شاب هذا على دوسن أنا كسر كي شعبك أسكرت الدولة بقى أنا سويت الكورة شعبك وحي بس كذا وحي عملت أنا واحدة وضعي والي هذا الشباب كل بمارس من سؤال بيستعمل محمد لا كجوان لكن أنت بدن دولة فهمت شيء نقالها أي على حسها اللي بس كذا الصومالي كان حول مقاطع وحاليا وأنا ممكن استاجو كلا لسه كان أو هذا كوي سكين وضع وبيسوي كرتا أو وضع مسيكرتا سلاح ضوء مسيكرتا ولا كذا أذكر المهندس كان كل شيء على ضوء وقعتها أو محل أنا حبطنا وسيلي في الصومالي الضد فربنا أنا خبرت يا عمر عن تصريح حبلا ودولة الطريق فربنا ولوجي لكن واحد مدعي إلى تحديث اللي تلاقي منه وحلاقي خبصه. واحد أحد الحديث كان الحاجة العاشرة في الجامعة من بين حسن شهود وزير الدي هو أرمى الدولة فصيحة كان حرمسه معك فربنا المنصات وإلى عرض عن البوبة حتى هذا قانون مدوبي وبلوى حيالك فربنا كهبل أو حتى كان حيث بيجوا بسوء سنة مرة هدي دين على عيوب كأرضيه وحريه سكيسة دين على نقرأ بقصة هنا يجود لقصة دين على المرة بتوقع مسألة العام مسألة صوبنا مع هذا وجه صوبنا ويهو دفك سوق الدين وردحنتا دولة أيها واحد وقتي أمام مدحوينها يجبد عند في معرفة وسير كلمات بلد الفروسية حاجة أيها واحد وصول يمكن سوق الدين عليها شخصيا ومن عن وسهر جزو ومن عن قرأ يجين كل صومال يخورين عليها ومن عن قرأ إلى يسكن مجحابين حساب علم لحقيقي لديه جري وحيكون مسؤولان أيات وهم مسؤولان سيدي يمكن لكل يعين دولة الصوماليات وحي قرآن وردحينه حمجرات وحي أصبغي وعما أقولنا يعني أي قيان ميشي وأي كسو حالين أي سيدرين وحي نقلين من فكرات مدح الصوماليات وبهدلية أقول يعمل الصوماليات محايا لي وحاكمت جاء كبضان عن أركي وحيانا أي قرآن وضنبع أي كسر يسيني على ما أي كعبوريات بس مركز أمام وحرس واحد دولته أنا يعني عدو يفكر الجيرك اللي يعني تدولده ورسوات مركز عليه لفكر ولا يذكر وأنا كنت دعي معارك الدولده أنا ما لفت ذلك دولية أيها حتى نوحنا نقارن كريم لا ليس الدولده لا لا مش كبرين إلا صاروا محايا الوحي كو قردمك هاي الدولده وكل محاربي كرنا هو الدولده يعني أولا وجه خبايني بيجيستو معركة سحب كذا وحيالها يكتبان أيان مركز يسحلوا معارك هو من نوع حتوح الله وكذا لكن وحارك قولنا اللي قالوا المونيتورين بسكروبك وقول الله وكذا إن صوماليا اللي بربريو وقول لسه غيرتا هو تفتكوا على صوماليا وقولين كل واحد باران معركة تصارع بان ديسورات وقولين كل واحد باران كما قرأتين تهوكا وحالهم علينا كده بريكم والمثل اللي بجال بقى وكده عادي مثل اللي ودي ومعركة تريح marka تصارعوا سوكا وخاصم يستو قدك أي صوت بجال في زمن الصومالي يكون فلان لا معركة وأنا الناس كذبته وحقوق ناس لا صوماليا هذه أنا قبضتين وتعلمت عليك يعني لكن من كانوا من نوع كراء ومن يعني
iska saaro shabaab iyo dowladda gudihiisa wada fadhiistaan ee caqligeeda allah garansiiyo dowladdan ninka soo kala sheegay wafad sheegay in macnaha dowladii al-shabaab ee ku shareeya hoggaanka turkiga oo abdaagay cabdiqaadir cali waxaa ku jira wadaankasta ciidamadii dowladda waxaan cali lagu siiyo dhinaca waxaa la leeyahay maamulka ugu sare madaxweyne xasan maxamuud iyo wasiirda arrimaha dibadda ee aan jirta fawziya xaga ancaam musleen marka bandhigaa haddii ciidanka lacag si ay cidlo samayn karaan ciidamada al-shabaab oo ay shooganayaan dowladda horta corruptionka iyo waxaana waxa weeye dadka hooyahan hadda uu ka dhawaajiyey xagaley saaxiibka xagaley waxa weeye waa dad dhisan qofka haddii xitaa uu qofku caadi yahay oo isagoo dabiiciya markiis hore oo qof caadila ah xitaa markuu shaqada noocaasa u qabto mudnib ayay ka dhigaan oo isagay dembiile ka dhigaan intay dembi afka u geliyaan ayay hadhow ku eedeeyaan marka waa acmaasha yuhuudda oo ilaahay xataa uu noo sheegay ilaa suurat albaqara ay ku cad tahay marka wax la yaaba ma laha matalan in markii ay arkaan madax soomaaliyeed oo itijaaha saxiixa u socota ama waxoogaa laga yaabo inay soomaalida isfahamsiiso ama isu keentaba inay u sameeyaan qorshe ay ku casilaan ama ay ku eriyaan oo shaqada ugu eriyaan amaba ay ku assassination kula sameeyaan marka wax lala yaabo maaha taas waana wax la filayay balse waxaa loo baahan yahay qofka soomaaliga ee madaxda ah inuu yeesho ragannimo iyo sijaaco geesinimo leh oo si waadaxa uu shacabkiisa uga hadlo anigu waxa aan la yaabanahay waxa weeye wasiir ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama ra-iisul baarlaman ha ahaado amaba xildhibaan ha ahaado waxaa lala yahay qof soomaaliya oo si saxa dadka wax ugu sheegay inuu bas mashruuc lasoo alifay oo mu'alif ahoo sida road map